waxaan doonayaa maanta anigu waxaan markaasi xuduudda juquraafi ahaan addoommadu ay ku kala nool yihiin burco laamiga madow ee bari uga baxa maan arag laamiga madow ee dhammaan Soomaaliya u soo baxa noloshaydu inta ay jirtay maan arag dhinacana kama soo marin wixii xagga ka xageeya mooyaane waxa addoom kasto caaqil isweydiinaya maxaa keenay aadan sunna halka waxa ay soo kiciyay waxa weeyaan horta waa mabaadi saamiya oo aaminsanay oo kamida manhajkayga markaasi qanaacadeed ee diinta islaamka waana wax markaa la kalifay cadowga maanta goobaya islaamka cidda indhaha u ah ama u baaqaysa ayaa anigay soo barakiciyay ee bariyahan iimay qoondaysnay inaan halkan imaado sababtoo diintayda waxaan ugu gargaari karaa laba waji culimaduna markaasi sharciga waa ay sheegeen ima ina diinta ugu nusrayso al-jihaad bil-lisaan oo xujo iyo cilmi iyo bayaan ah iyo inaad ugu nusrayso diintaada al-jihaad bis-sayf wa sinaan inaad markaa seef iyo hub qaadato oo cadowga markaa hor taagan dacwadda islaamka inaad dariiqa kaga leexiso anigu markii hore khiyaarkan taagnaa wuxuu ahaa ad-dacwa iyo jihaad bil-lisaan ah laakiin waa lay ogolaan waaye thaqalaynkuna markhaati bay iiga yihiin hargeysa ayaan ku noolaa oo aan ku dhaqnaan joogay dhibaatadii iga qabsatay maanta caloosha bini'aadanka oo uu leeyahay ilaahay maqaarka u sameeyey aniga saab aadama sameeyey baa ku jira waxaana sababay inay markaasi nimanka ay markaasi carbisteen gaaladu ee askarta iyo casaakirta waa qaybo ka mida Somaliland sida markaasi aaranka geelu barwaaqada kaliisha markuu dhargan baraarka ugu durduriyo baabeerkana lagaga tuntay oo lagu durduriyay oo kabta weyna qadha meel maskaxiyo miyir ku yaalo iyo hilbaha halbowlaa midna aan looga nixin si kasta ayaa katiinadna loogu ciijiyay dembiga aan u galayna waxay tahay wama naqamu minhum illa an yu'minu billah inaan ilaahayda rumeeyeen mooyaane wax kale annaguna muuminiintii loo dhibay ilaahayna rumeeyeen baan nahay inaan dacwada xaqaana dadkaan u xambaarsanay amaanadiina runta ka sheegno arrintaasi markii ay socon weyday bedelkeeda waxa meesha ka shaqaynaya wadaadadaanu meesha ku joognaa saddex xeerin oo kaliya u qaybsamayaan wadaad buulkiisa galo balaayadu meesha maraysa markuu arkay isiri markaasi nimankan cidigaha iyo xagxagashadooda u taakiilmayside iska gaagaabso iyo mid isagu marka horeba isa sheegay nin casarkiisa sheegay cishii ceebi ma raacde nidaamka meesha ka jira la gaardiyay bal nidaamka daaquutiga ee meesha yaala isaga baarka u fidhaya oo dalle iyo daliil u raadinaya qaybta saddexaad waa id ila maca oo iyagu ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu qur'aanka iyo sunnada ku sheegay aan dhaafaynin xadgudubna ku samaynaynin ta'wiil baadil iyo inxiraafna aan la imanaynin qolada markaa dhibanaha meesha ku ahi waa kuwa taa bedelkeeda waxaa sii dheer xaqii marka lays hortaagay dalka markaa maanta lagu magacaabo Somaliland shalayna ahaa gobolladii waqooyi ee Soomaaliya waxa weeyaan intii burburku dhacay dawladdii markaa Soomaaliyeed ee tagtay dabadeed si fiican baa markaasi baarka loogu fidhay fasaxna loogu siiyey hay'adka dawliga iyo kuwa NGO-yada ee gaalada iyo kaniisadu ka dambeeyaan waddankan u dhalanay arrinta xan maaha waxa ku waramayaan ay ku hor jooga waa xogagaal naasix ah oo ka mid ah aanad waxba u foojar gareyn kareynin si aynu wada ogsoonahay hay-adan oo tabshiiriya ayaa markii aanu ku baaqnay dhibaatada ay wadaan in laga qabto ummadda waa laga joojiyay NNM baa ka mid ahaa somdhef baa ka mid ahaa dhuumasho dhabarku muuqdaan ay dhuunteen daaqadana way ka soo galeen oo way soo noqdeen oo waanu ognay qaarkood baa baraarka iyo adhiga dhaqa daarihii iyo sarihii ay ku jiraan markay xamili waayaan farta ku fiiqnay waxay dhahan Soomaalidan oo adhiga u dhaqaynaa qaarkaadna baabuurta markaa calaawiga ay Soomaalidu taqaano iyagoo kolonyo ah bay markaa xuduud beenaadka iyo dhinaca hawdka iyo waqooyiga magaala madaxda Soomaaliland ay u kala baxaan oo aanay kala go'in oo islaamaha odayaasha reer miyiga ah oo dhaadana naga idin biilinayna abaarta taala dhulka waynu ognahay iyo darxumada iyo biila'aanta iyo oonka $60 baa qoyska loo qoraa $60 waa inaanu awrkiisa iyo hashiisa iyo aanu markaa idihiisa dhaqanin $60 waa inaanu beertiisa falanin $60 waa inaanu dalkiisa khayraadka ku qarsoon aanu la soo bixin waxa weeyaan caruurtii yaryarayd ee dhalinyarada rag iyo dumarna madalaad iyo hay'ado kala gaar ah ayaa kala qaybsaday
dhaqankiina way ka iibsadeen caqiidadana way ka iibsadeen waxaa markhaati kugu ah inamada yaryar ee Hargeysa iyo Burco u dhashay intaanan gobollada kaleba gaadhin waa kuwa mar walba baraha bulshada fadhiya ee diintii shalay ay ku dhasheen ee lagu soo barbaariyay caayaya cid markaasi amni iyo suldad sheeganayso aamusiisa talaabo ka qaadana ma jirto bal TikTok ay soo fadhiistaan iyagoo siday doonaan nabi maxamed u caayaya bacdama baadariyaasha diinta ku faafiyo qofkii ka hadlay hanjabaad cad heer madaxweyne loogu hanjabay qaarkoodna jeel ay maanta markaa u dhexurdaan iyo xabsi waxaynu ogsoonahay wax kasta oo wada kullu daa lahu daabay tiri gabadhii markaasi xadiis mustarci ku jirtay cudur oo dhan baa cudur ah balaayada adduunka oo dhan baa loo soo waariday muxuu ahaa markaa afrikaankii Botswana uu ka yimi dhaqan xumada ragga lagu sameeyo markaasi hogaaminayay kii Mareykanka ah dhaqan xumada ragga lagu sameeyo hogaaminayay naagtii Ingiriiska ahayd ee markaa genderka iyaduna waday ilahayd hablow raka maarma oo inaniba inan ha ku maaranto Hargeysa sacabka loogu garaacay iyo xarunta ay ku leeyeen book fire la yiraahdo ayaa sacabka loogu garaacay madax iyo mijaba waa la taagnaa maalinta sacabka la garaacayay wadaadadii ka hadlaan ka midna heeloo haydaartay arinta loo dhibay cid kale oo ka hadashayna ma garanayno oo aan ahayn cid aan markaa sawdkeedu aanu muuqanayn aan ka ahayn cid kale oo ka hadashay ma garanayno waxaa ka mid ah markaasi kuwii kala dambeeyay ee Kenyaanka ahaa beebelada qaybinayay ee iyagu markaa gacantooda dalka kaga soo saareen imika maxaa ka socda dhulkii hadda aynu joogno haddadan maxaa ka soconaya waxa weeyaan markaasi bulshadii baa fasax lagu siiyo way hantiyeen dawaa'irta tacliimiga iyo tarbawiga oo dhan waxay la galeen meelo markaasi iyaga u gaar ah ilmuhu waalid iyo wadaadtoona rasmiyan ma arko waxyaabaha mandarka la soo dhigay foojariga laga dhigayo waa waxba kama jiraan tacliintii hoose iyo ta dhexe iyo ta sare intiba gacantay ku hayaan faracyo ayay u sameeyeen dalka oo dhan baa la rabaa waliba in markaa tuulo walba la gaarsiiyo waxa la rabaa markaasi tacliin qarbi ka timi oo ku dhisan mabaadi kufri iyo dimuqraadi iyo markaa ilhaad iyo diin la'aana in dadkii lagu rabeeyo markaas looga dhigayaa meelo tarbiyad iyo dacwadda islaamku ay ka socoto waxaan isweydiinayaa meelo markaa ay haystaan nimanka gaalada gaar ahaan Kenyaanku oo la magac baxay markaas yaan muslim magac islaam baa lagu bixinaya yaan muslim maalintii aan ka hadlay beebelada ay dhigayaan iyo manhajkii Kenya ee kaniisadooda ku taalay dhigayaan ardaydii gacanta ku sidata aan soo bandhignay waxay yiraahdeen waa meel islaamka lagu faafiyo mid Kenyaan ka mid ah soo islaamay hadda waxaan maqlayaa aan dalkii ka imi abaarsa tijo markaasi saqaleynkuba ay ka dhareegsayin habarta indhaalina og tahay baa la leeyahay waa meel dacwadda islaamka laga faafiyo waayahay baadari Mareykan ah iyo shaqaale Chinese soo dirtay iyo kuwa kale oo la midihi ma dacwadda islaamka ay faafiyaan ma akhlaaqda suuban ee diinta islaamka ay dhigaan bal hadda waxaan u bandhigayaa ragga markaa iyo dumarka adduunyada ku nool wixii caqli leh noocay doonaan ba ha noqdaan arinta iyada ah midda kale mahmaa baa jirta waxa ay tahay ninkii wiilwaal la oran jiray baa la ayaa wuxuu yiri mahmaa baa qisay ku saabsanayd qisada uma bixi karaye sacana saadag iyo sawdka maxay isku soo beegay maanta aadan sunna idinka yimi iyo abaarsa tijka islaamay ee maalintii horeba lahaydan wuu islaamay Kenyaanka ah maxaa ugu soo celiseen baraha isugu wada tagteen inta markaa ku faafiseen bulshada waxa weeyaan markaasi waa saxab xeeladu ku jirto laakiin waxaan leeyahay culimada arinta ku hawlan iyo ragga siyaasiyiinta ah hadda maanta waa ayaamo yaro adduunyada ah bari markaa qof waliba dhintay ilka la dhigo waa la soo baxayaa wali malaamaydaani loobin qiyaama inuu jiro waad ogtihiin waana rumaysantihiin ilaahay hortiisana muhaasabada waa imanaysaan markhaatiga shaahidka Mareykanka iyo Kenyaanka gaalada ah iyo dadka diinta ku soo duulay dalka ah u furaysaan inay meeshay hayaan maxal dacwadeed oo diin laga faafiya ay tahay ilaahay maxaa ugu jawaabi doontaa ila rasuulku uu idin digay calayhi salaatu wa salaam oo waxa uu ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin lir'iyatihi illa harrama Allahu alayhi aljanna ma jira adoon xil ilaahay u dhiibay bani aadan iyo qeyrkiiba dhinta maalintii ajashiisu dhamaatay allana hor yimaada isagoo khiyaameeyay ra'iyadii iyo bulshadii loo diray ilaa haduu jiraba ilaahay jannada uu ka xarimay
كفير صدق حديث كان صحيح مسلم كوسوغان السبن دقا إذن كان فيهن عد ولبنا وإن السبن دقتو لأن مركز شهادة السور بان أركينا هراو ترى هذا إن كتب يكفها في صي شيء إيسا جامعة دي هايسوتو أفر كتابة يا لباتنا دين الإسلام ككمدان waxaa dhexdeeda yaalla maktabada weyna waa la og yahay cid waliba way ogtay kuwa jooga iyo kuwa dusha ka eegayaaba bal hadda waxaad markhaatiga furaystaan mid kale waxaan idin sheegayaa Kenyaankan aan hor wadaan maalin walba leedahay nin Kenya islaamay shuruudaha qofku markuu toobad keeno laga rabaa waa maxay waa kan Ilaahay Quraanka ku sheegay qolada ahlu kitaab iyo yahuudba iyo munaafiqiintooda marka ay Ilaahay toobadooda aqbalayo illa alladina taabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم شروط إلهي دقي يهودي النصارى يا منافقين إجرام كي قال لماذا مركي كتوبة كينيان توبة شروطه لما يستطيع لقربة إصلاح عمل كودي هجاتيان بالقربة وحي فسهادين ين يبينان ومضى يدي مركا دقن كبدلني الدين كسار كقوة دين فرها مكلابتين مثل كي بيكودان مع الدنيا وحي فسهادين عمل كودي مسوبيين شقدا مركا حني هيين مكتجين الدنيا مركا سعان ما كن نقدين كوي توبت كيني قبل مركا صوماليا كو إسلامتي توبت ده سيدا يعدي سي تلياني هيدو إنه قرننا تي فرنسيسكا هيدا مالي كو إسلامتي مركا توبت ده مركا سي عيلتي بتوبت مركا سي نصوحة سيدا يبين تو إنه قرننا هدا روش يجيسان توبت ده ها عداتو عالم كهجا شعور باهين تيدا هناك توبت كان سريع حن iyo markaasi hoosiiska ay ku jiraan ummadeeda lagu khiyaamaynayo waxay tahay markaa halkaasi waa booraan afkii laga qafilay oo qabarna hooseeyo sheekada aan ka wadaan imaanshiyan halkan imi dabadeed iyo boorikaaska ay maka boorikaariseesan waxaan markaa aniga markaa sababahan halka uga imi waxay tahay inay yaro nabigayga caayay talaabo laga qaadi karo ana awoodu malihi naag baadariyada ama kaafirada ama markaa kaniisadu wadana waxa weeyaan markaa cidi talaabo kama qaadi karto maalintii markaa naagtii loo oran jiray maxay ahayd Maryana kaniisada Hargeysa ay furtay frontier-ka sheeganaysay tabarruc kaniisada Hargeysa kaga furaysa Catholic ma la hadlay mise waa la canaantay in shakhsiyad aanan magacaabaynin imika oo raad ku lahayd baa fariinii soo dirtay waan ka bari noqdo waan eriyay sheekhadan waxa tiraahdaa haygu darin anigu taamo ogiye waxa weeyaan may nabad gasheen dalka dhibaatada keentay hadii talaabo laga qaadayo waxaa soo dhan markaa maxaa markhaati cad u ah waxaanu haynaa maanta qoysas Soomaaliya oo qabaa'ilkeenu ka dhalanay ku abtirsada wada Kirista jeelashiina ayay galeen qaar fara badani inama iyo habla ayaynu haynaa rag iyo dumar baynu haynaa waxaynu haynaa markaasi waliba bulshadan ay gaaladu maanta u doodo madaxda siyaasiyiinta ay yiraahdaan gaaladu waxay nagala hadashay aqaliyadka inaynu xaqooda siino manaasibta dawliga ah iyo markaasi hay'adka iyo markaa dawladka dawladda meelaha ay ku lahayn kaalmada in nasiibkooda la siiyo kuwa loo dooda waa kuwa markaasi weeyaan diinta ka baxay waxa kale oo markaasi aanu ka dhareegsanay daabuuradan iyo jamaacadan iyo kooxadan oo qowmul luud ah inaynu ku hayno markaa jeelasha wadanka wax talaabo laga qaaday ma jiro xarig markaa lagu biiliyo jeelka dhexdiisana wax qiimo ama tarayo waliba waa tusaale yar oo dadku markay wax arkaan lagu aamusiyo waxyaabaha la qabtaa leeyahay markaa qoys Kristaan la qabtay iyo qowmuluud isqaba waxa weeyaan dadka ayaa lagu seexiyaa ayaamo ayaa jeelka lagu hayaa hay'ad baa u diyaara iyo kuwa xuquuqahooda gaalnimo iyo gender iyo jinsi ilaaliya dibadda jeelka waa laga bixiyaa waxa markaa aynu asuri karayn Soomaalida tiri markaa sakaara xaar muuqda bay aasaastay hadii markaasi nidaamka Soomaaliland ka jira uu toobad keenayo dalkiisa uu markaa 30 sanadood ka badan mahalakada ku sii wada ee uu qoolka u galiyay gaalada uu ka furayo de waxa weeyaan markaa waxay noqonaysaa bayina cad iyo toobad cad ayay noqonaysaa waxba yeynaan dadka kala xaganinay waxaan dadka aan maanta la hadlayaa ay tahay aniga halka waxa iga keenay dhibaatooyinka noocan oo kala ah iyo kuwa kala badan oo sheegaynin weyna sidoo wuxuu og yahay uma waramo waxaan si horta naseexada u dirayaa waalidiinta baraha markaasi dhaqan bedelka iyo diinka saarka ubad u dhigto waa hilba aynu wada leeno laxiyo dambi ban isku nahay waxaan ahay nin culimo oo naasix ah waayeel waalida baan ahay oo hilbihiisu u damqanayaan dhallaankayga wadanka waxaan leeyahay caruurtiina barayaasha aan soo sheegay iyo faracyadooda iyo meelahooda kala baxa
intaanay imanin xisaab dhow ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala si dhaqsaa waa laydinku maslaxayaa wasiirbo inankaaga iyo inantaadu noqon doonaan iyo xildhibaan iyo madaxweyne dalka ka noqon oo wasiirka iyo xildhibaanku iyo madaxweynuhu maanta waddankayga qiimeeyay buu ka leeyahay mansiladu haysaa lama jeertaa meel lagu gaadhaa maxay tahay dadka halkaa loogu xayeysiinaya intay goori goor tahay weli berri ammaan baynu taagannahay waxaan leenahay laga noqdo taasi haddii ay timid dalkayga waxaasi ka jirto waxna aan ka qaban kari waaye dee waxaan markii hore iska marmarsiiyo ka dalbayaan lahaa cudurdaar baad haysataa intaad xaqa caddaynayso waa hijrada mashruuca waayo maanta meel loo hijroodo daarusalaam iyo daarulislaam baa la hayaa hijradaasi ayaa markaa noqonaysa fardu cayn inaan ka tago meeshaa iyada ah waxaanay noqonaysaa hijrada meesha laga hijroodaa waa daarulkufri haddaad igu tidhahdaa sheekh aadanow ma daarulkufri baa dalka aad ka tagtay jawaabtoo kooban haddaad iga dhegaysato daarulkufri culimmadu waxa ay ku calaamadiyeen daar kasto nidaam daaquutiya oo kaafira lagu xukumo walow mujtamac oo dhammiba muslim ha noqdee mujtamacayguna waa mujtamac muslim ah nidaamka laakiin meesha ka jira waa nidaam daaquuti ah iyo qaanuun wadciya oo kufri ah oo dimuqraadiya dimuqraadiyadna sideeda waa mabaadi kufri ah markaasi weeyaan laakiin mujtamacu waa mujtamac muslim ah biljumla marka la eego iyagoo maanta markaa diinka saarkii iyo ilxaadkii iyo markaa kii calmaaniga ahaa iyo taariku salaadkii iyo balaayo kale hoos harsanayso iyo kuwale markaa waxaanu noqonay markaa kiristaan bay noqdeen iyo balaayo kaleniba ay joogaan laakiin waa mujtamac muslima nidaam daaquutiya lagu xukumayo meesha looga carari karaa waa daarulislaam ma shareecada islaamku xukumayso halka shareecada islaamku xukumaysa daarulislaam loo yaqaana ee kitaabka iyo sunnada lagu xukumo walow dadka mujtamaca ku dhaqani isku dhex jirba ha noqdaan hadday doonaani marka waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dad muuminiin oo maka rasuulka kaga hadhay wuxuu ku tawbiiqiyey oo ku canaantay qur'aanka iyadoo ilaahay kaga warramay carabkii malaa'igtiisa markay nafta ka qaadayeen ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu dhaalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunna mustadcafiin ilaahay waxa uu ka warramay kuwo malaa'igtu nafta ka qabanayso markaasay odhanayaan maka maxaa ka qabanayse maxaad uga hijroon weydeen waxay leeyihin waana la gumaysanaya ducafaanu ahayn qaaluu alam takun ardullaahi waasica fatuhaajiruu fiiha malaa'igtii canaantii bay ku soo celisay dhulka ilaahay miyaanu ahayn dhul ballaadhan oo waasica xorriyad iyo fusxad aad ku helaysaan madiine maxaa ugu hijroon weydeen yacni inkaar iyo tawbiiq ayaa markaa halkaa dhakada laga saaray ilaahayna subxaanahu wa tacaala muxuu yaboohay ulaa'ika ma'waahum jahannam wasaa'ad masiira way ka calaacaleen saxaabadii maalintii ay beder ku dhinteen markii lasoo qasbay iyagoo dagaalkii beder gaalada mushrikiinta u soo raacay muslimiintii baanu dallay bay yidhahdeen waxaa la yidhi kuwan ilaahay wuxuu yaboohay markaasi ma'wigooda iyo hoygoodu waa jahannam meel loo laabtana iyadaa ugu xun haddii halka aayaddan iyo aayaadka kale qur'aanka ku jira inay jihaadu ku tahay markaa hijradu fardu cayn cala alumma waana baaqi zaman muxadada oo gaara kumay koobnayne rasuulkaa inoo sheegay xadiis saxiixa calayhi salaatu wasalaam laa tanqadicu alhijra xataa tanqadicu tawba walaa tanqadicu tawba xataa tadluca shamsu min maqribiha ilaa qoraxdu inagaga soo laabato halkay ka dhacdo inta ka horaysa toobaddu way furantay toobadii intay furantayna rasuulku wuxuu yidhi hijraduna way furan tahay oo waxa weeyaan markaasi waa la hijroonayaa xataa hadduu beled islaam oo shareecada xukumaysa macaasidu ku badato culimmadu waxay dhahaan beled daaca ilaahay lagu samaynayo lagu adeecayo macsiyi ka jirin ha looga hijroodo marka aniga hijradeedu waa hijra mashruuca waana la igu kalifay sababta dabada iga wadaana waa taasi markaasi weeyaan waxaa markaa aad kaloon idiin sheegayaan mahmaah baa jirta carabtiiyo soomaalidu isku waafaqsantay raa'id laa yakdib sahan been ma sheego haddaan imi wilaayaad shareecada islaamka lagu xukumo oo la odhanayo wilaayaad islaami ah maxaan ku arkay waxaan kaga imi dhulkii aan markaa ka imi iyo dhulkii aan soo maray hawe iyo bad iyo berri meel allaale meel aan soo arkay oo dhanba waxaan ku soo iloobay munkaraad iyo macaasi iyo fawaaxish iyo wax la gaalaysiinayo iyo wax la dulmiyayo iyo wax la eryanayo halkaasaan kaga imi haddaad leedahay waxyaabaha dhaqan xumada xal looma hayo oo mukhaadaraadka xal looma hayo oo qaadkaa loo maaro waayo oo sigaarkaa loo maaro waayo xalkii halkanaan ugu imi waxa weeyaan wilaayaadka dhexdooda markaasi baabuur wada madmadow oo gubatay baan idhi kuwani maqaar lagu dagaalamo la gubay baa markaasaa la idhi waa kuwii qaadka iyo mukhaadaraadka xalkoodii baa la helay meel caleen qaada lagu calaalinayo kama jirto halkan
sigaar lagu cabayo khamriga iyo xashiishada maalin walba booliiska Hargeysa ay soo bandhigaan ee waliba qaadka ku dhex jira iskaba daay iyo daroogada kala duwane halkan caleen qaada iyo xabad sigaara midna laguma qiijiyo masrax kama jiro iyo heese iyo muyuusi halkan kama jiraan dad isbooba iyo burcadayn iyo dulmi laysu xoog sheeganayo ninba qofku ka adag yahay halkan kama jirto qofka waxa loo qabsan karaa wixii dumadiisu keensatay oo taasina cadaaladda shareecada islaamka ay u bandhigan tahay marka waxa weeyaan waxaan doonaynaa qofka xaq doonaya yaan markaa loo bahalagelinine kaalay oo wilaayaadka islaamka soo booqo adigoo fasax ayaama ku joogaya ka bogo oo dhexmar waxa dabeedna aragto ayaad ka warrami doontaa in waxaana lagu maahmaahay al-insaanu caduwun lima jahila canhu qofku wixii uu jaahil ka yahay cadow buu u noqdaa dhulkan iyo waxa lagaga dhaqmay raayada jihaadka waxa hoosteeda yaallay camala in badan baa jaahil lagaga yahay Soomaaliduna waxay ku maahmaatay caruur iyo cawsiyo biyo ku nool waa loo kala sheekeeyaa wilaayaadkani waa dalkiini waa dadkiini haddii la idinku yidhi cadow bay idinku yihiin cadow idinkuma aha aadan sunana maanta cadow idinkumuu noqone gacal xabatalmuudo naasixu idin ahaa maantana naasix gurmadiidiina abaanahay dulmiga badheerka iyo diinka saarka iyo dadnimo xumada iyo takhallufka maalin iyo intaan soo jirnayba waxaan leenahay horumar iyo xoreyn baan ku jirnaa iyo ictiraafka Somaliland raadinayso ma kitaab iyo sunna ay ku dhaqantaa bay ku doonaysaa maxay ka rabaan gaala ka maslaxayaan ay ka rogrogayaan ay gaala ka helayaan waxaan idin leeyahay haddaynu xisaabtanno horta meeshan wax madluubo inagaga lumay ma jiro haddaynu leenahay mabaadi saamiyaan haysanaa kitaab iyo sunna ku dhaqanaan ku dhaganaano laakiin haddii wax kale la raadinayo maalintaad ictiraaf hesho maantaan ku arkaaye tinka iyo tagogaad yeelan doontaa nooc mu noqonaya maalintay markaasi Mareykan iyo Yahuudi iyo reer Yurub safaaradahooda ka wada furtaan ay qoys ku qaybsadaan ee aad ictiraaf hesho bal tinkaaga iyo tagoogaga maalinta ay sheeg nin baabari wuxuu soo arkay qolaas nin suufi uu meel ku haysto uu leeyahay markaa salawaad buu qaaday ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallam wasi Soomaalidu akhrido ala daraja daima labad markuu dhameeyo wuxuu soo ururiye qurbaankii wuxuu arkay caadas jirto noocaas wuxuu waryaaraheen reer hebel qabiilkii sheegi maayo tuuladoodii wuxuu ala darajaad inta idinku joogtaa buu qiimo Somaliland intay qiimo idinku joogtaa raadinteeda iyo ictiraafkeedu diin baa loo baabiyay dal baa loo baabiyay ummad baa loo baabiyay dhaqan baa loo baabiyay ummad baa maskaxdooda iyo aqligooda meesha laga gumaysto oo maskaxda iyo aqliga laga fikiro waxa laala waxaynu ku haysano raasamaal iyo faa'iido ma jirno intee ayay qiimo inagu joogtaa raadinteedu aan ka fikirno aynu isu taagno anigu maanta Soomaaliya oo dhan ugu ma baaqayo dawlad cilmaaniye mid shuyuuciye mid qabaliye toona iyo mid juqraafiya waxaan ugu baaqayaa dawlad islaama kitaab iyo sunno ku midaysan oo waxa waxa geeska Afrika jooga islaami ay hoos harsadaan iyo caalamka waxay uga yimaadaan baan ugu baaqaya markaasi waxa iyagu ka fikirayaan ay hadhow ay oran doonaan waxaasad markaasi u jeeda waxaan halka uga soo gudbayaa halkanaanimi maxaan ka soo doonay halkan horta waxaan maanta ku hadlayaa waad arkaysaan dhulkan wilaayaadka islaamka ah ee xarakada shabaab al-mujaahidiin ay gacanta ku hayso horta waa imaaro geeska Afrika ka jirta midda ugu siqada badan ee ugu markaa horumarsan ee ugu xeesha dheer leh haday tahay siyaasiyan iyo haday tahay dhaqaale iyo haday tahay tarbiyad iyo haday tahay tacliim iyo haday tahay arrimo bulsho iyo haday tahay tacaawun iska daa manhajkii quraanka iyo sunnada lagu dhaqmayo bulshadina lagu dhaqayo warkeeda iska daaye waxa weeyaan culayska saaran halkani dawladda geeska Afrika ugu xoog badan oo Ethiopia jabhad yar oo libaaxi Afrika jabhad yar baa la fuqday inta dawladood ee la dagaalamaya caalamka haday halkan isugu yimaadaan Ethiopia laba toddobaad baad sheegaysaa in laba maalmood may gaadheen waxaasina waa siqada iyo kalsoonida kitaabka iyo sunnada lagu dhaqmayo iyo nasriga Ilaahay ayaa lagu helay marka waxaan ka bilaabayaa maanta halkan waxaan u iminan daaquudka iyo nidaamkiisa meeshuu joogaba in la dumiyo manhajka rabbaaniga Ilaahay adoomada u dareena u soo dajiyayna lagu hogaamiyo lagu dhaqo waa nasiixatul iimaan bay kamid tahay man yakfur bidaaqud wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati alwuthqa ayada quraanka aba inoo sheegtay waxaan la hadlayaa wixii aniga igaranaya magacayga iyo muuqayga af Soomaaligan ku hadlaya fahmaya ama Soomaali han noqdaan ama qeyrkood bahdaan markaa ka dhashay jinsiga Soomaalidan si gaar ah ula hadlaya
waxaan leeyahay markaa fursadda maanta inay markaa idiin daamiyo soo noqon doonto noloshiina anigu ma hubo laakiin waa fursad qaaliya ku fara adeyga waxaan ogahay markaa maxaakim sharciya oo kitaabkiiyo sunnada oo looga imanayo maraykan iyo yurub afrikada qaybo ka mid a oo dadku intay halka yimaadaan ku kala baxaan waad garateen waad aqoonsateen wilaayaadku waxayan shareecadii islaamka oo la dabaqayo haddee waxay u baahan tahay difaac iyo ansaar abeesooyin baana idin dhex fadhiya niman gaagaaban oo xabashiya iyo kuukuyo addoona iyo reer galbeedka markaasi iyo kuwo kaloo la mid ah meeshan inoo fadhiye hal maraan isugu nimaadnaan rujinno oo aan godka ka saarno dalkeenna xorayno dadka diinta innagaa iskale dalkana innaga iskale dadkana innaga waaye yaa inagu haysa haddaan ku dhaqanno shareecadeenna intaan xoraysanno mabaadideenna markaasi inagu haysa iyagoo toodii kufrigay meel walba ugu dhabar adeegayaan inay u maraan waxaan leeyahay markaa gaar ahaan gobolladii aan ka imiyow runtii waxaad tihiin taran iyo tayo iyo dhaqaale iyo horumar iyo siyaasad idinkaa ugu mutakhallifsan waxa idinkada ee idin hodayna waan ogahay fariq tasud iyo kala qaybin iyo nin danaysta maalin walba 5 sannadood oo dagaal ku jirta 5 sannadood madaxoodna hormaha isu soo gurataan waxa weeyaan markaasi ari qulux kama ilbaxa ayaynu taaganahay walaalayaalow arinta aqli saliim ah aynu ku fiirino aynu mid iyo laba iyo jamaaco u fikirno oo kitaabkii ilaahay inoo soo dejiya aynu dib u eegno oo waxa markaa adduunyo iyo aakhiro inoo maslaxada diin iyo adduunyaba aan ka fikirno taladaasaan idiin soo jeedinaya ninka maanta taa markaasi maandhaafsanna waxa weeyaan dardaarankayga waan u sii sheegayaa fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawidu amri ila allah muslim min aali fircawn baa qoomkii qibdiinta aali fircawn ku yidhi waxaan maanta idiin sheegay naseexada haddaad aqbali weydaan ciribteeda waad ogaan doontaan waxaan idiin sheegay taladayda iyo arrinkaygana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u bandhigayaa rabbi subxaanahu wa tacaala isaga ayaa inoo shaahid ah anigu waxaan ahay markaasi nin muslima oo gob ah oo guri rifaysay oo la dhibay oo la eriyaday haddaan soo noqday haddaan kuu maqanahayba waxaynu nahay markaasi walaalo isu maqan iyo hilbo wada dhashay waxaan jirkayga laa yuuminu axadukum xataa yuxibu liakhi maa yuxibu linafsi anigu waxaan nafteeda la jecelay ehelkayga la jecelay ee mustaqbalkayga sidaan u raba inuu qurux bato baan walaalaha iyo tolkii aan ka dhashay aan doonayaa inay la mid noqdaan rasuulku maalintuu safay isku taagay quraysh buu ka soo bilaabay madaxa ilaa inantiisi faadumuu soo gaadhsiiyey markaa madax iyo mijaba kor intaan ka soo bilaabo ayay la raaskaan ka dhashay aan soo gaadhsiinaya waxaan idin ahay naasix amiin diin baanaad igu ogeydeen xoogsi kale iyo kaambey iyo siyaasad iyo haayado samafala mid ku dhex dhuunta maan ahayn waxaan u taagnaa waad ogtay wixii lay dhibana waad ogtay iyadii baan ku maqanay iyadii baanan idiin soo wadaa waxaanan idin leeyahay aniga cimrigaygu wuu iska gaabayey nasiixadan kuu sheegay maanta wixii ka dambeeya inaad maqlina ilaahay baa yaqaana laakiin taladaa dib baad kaga fikiri doontaa waad ogaan doontaa waxaan maanta kuu sheegayo qof kasta oo imaqlayo soomaali baynu nahay kolley aan idinkula hadlo luqad soomaaliyeed oo wax ka fahmaysaan iyo suugaanteedii oan ugu talagalay munaasabada maanta aan halkan joogo inaan markaasi idinka aqriyo marka aadan sunna waxa uu idin leeyahay anigoo baaqiyo naseexiyo tawsiyaba ka dhigaya dardaaran bismi illaahi suuradaha waa sadarka koowaade soda gabayga xigmad lagu sakimay samaxaddii diinta hadal saafan murti sooran baan saaka kuu dhigiye saad baan kuu wadaa sadriga sixa ku beeraaya saad baan kuu wadaa sadriga sixa ku beeraaya saxariir iyo sabaanaha kan dhacay salowga meeraaya soomaaliyay siyaabaa jiro adduun wuu silloon yahaye subayhiga baleeg salow abraaree siraya diintiisa subayhiga baleeg salow abraaree siraya diintiisa ha seegina nasri baa soo socdo waa la sugayaaye tilmaan sugan darwiishkii halkuu mariyey saadaasha waa saaxilkeen iyo saxarahaan saami ku lahayne aan sifeeyo bariga afrikuu sagal ka muuqdaaye aan sifeeyo sooyaalka bariga afrikuu sagal ka muuqdaaye waqal siman daruuraha nasriga mayayga soo hooray waqal siman daruuraha nasriga mayayga soo hooray saadaashu waa saxa laga bixiyo cisi sabada kuu yaalle sahanka raayada sidee tawxiidka sare u qaadaya
safkaa jihaadka lagu suntiyo sawjarrada dhaartay waa siiradii rasuulkoo shabaab soo alkumay sabanka maanta ahe caqiido saafiya ninkii sahay looga dhigay waa sada aakhire soo halawaday waxaa loo sardamayaa samaha weeyaane soo halawaday waxaa loo sardamayaa samaha weeyaane gobonnimo sahal laguma helo haddaan sayma loo marine gobonnimo sahal laguma helo haddaan sayma loo marine subax nool gaal sakaarka laga toogtiyo murtad seefta lala gaadho saduu daga saqda dhexe ku gala waa la soo gudhine salaax iyo waanada ninkii sardhiya saa dambuu garanee soo kaco sare u eeg dhambaalsidaha saaka kula jooga soo kaco sare u eeg dhambaalsidaha saaka kula jooga sadar muuqda su-aasha waa laga sarriigtaaye sadar muuqda su-aasha waa laga sarriigtaaye saaxada jihaadkiiyo baaqa samada yeedhaya soo haybsaday saaxiibayaal waa laydin sugayaaye soo haybsaday saaxiibayaal waa laydin sugayaaye wabilaahi tacaala towfiiq subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa astaghfiruka wa atuubu ilayk